soo dhawow. bilooyin ka hor isla TikTok-giga waxaan ka sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka Olaf Scholz uu iclaamiyay ama uu sheegay in uu tarxiili doono qof walba oo wadankani dhibaato ka geysta oo asalkani ka soo jeedo qaxootinimo. khaasatan ra'iisul wasaaraha wuxuu markaasi carabka uu ku dhuftay labada dal ee ah Afghanistan iyo dalka Syria. isla bishan hadda aan ku jirno markay ka dhacday dhibaatada Solingen uu dhibaatada geystay midkii qaxootiga ahaa uu dadka badan meesha tuuri kaga dilay ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Faqawiza iyo wasiirka cadaaladda ay fariisteen kadibna waxaa go'aan lagu gaaray in la tarxiilo qof walba oo dalkan dhibaato ka geysta. isbuuc kadib dowladda Jarmalka waxay tarxiishay dufcadii ugu horeysay ama qaybtii ugu horeysay ee dambiila ah. waxaan lagu sheegay 28 qofood inay ahaayeen waxaana loo tarxiilay dalkaas iyo Afghanistan waxaana lagu dejiyay caasimadda dalka Kabul. diyaaradda markaas qaadeen waxaa lagu sheegay inay ahayd Qatar Airways. Faqawiza oo ah wasiiradda arrimaha gudaha ayaa la weydiiyay dufcada labaad ama qaybta labaad goorta la qaadi doono. iidan waxay tiri ma foga laakiin taariikh maysan sheegin ama maalin ama balan maysan sheegin. marka sidii hore uu ra'iisul wasaaraha uu sheegay iyo wasiiradda arrimaha gudaha ay sheegtay dalkan xaq kuma lahan qof walba oo tilaa ah oo asalkan ka soo jeeda qaxootinimo. khayr badan idin rajeynaa.